magacayga maxamed rame maxamuud meesha waxaan kusoo gaaray dadaal fara badan oo sameeyey taasoo garab igu siiday inaan xawaaye aan ka faa'iidaysto murtida ku jirta maskaxdayda waxay sheegay shirkadda shaqadoon waxay u dhiirigeliyay inaan ahay qof maaragtay wax barnaamijka uu abuurayo ka miro dhalin karo soo aaminsan aan aaminay inaan ahay qof isku kalsoon soo qof maaragtay tartan galay waa arjays maasha Allah soo mar walba ma xumaan kartaba waxaad haystaa 8 ilaa 10 daqiiqo aad ku soo jeedisid fikirkaaga ganacsi aad ku soo bandhigtid halkan maanta ka bacdina guddiga waxa ku weydiin doonaan su'aalo waxaan ku rajaynayaa inaad waqtigaaga si fiican u isticmaashid oo 7 ilaa 10 daqiiqo haystid aad si kugu filan inaad isticmaashid sidoo kale waxaan u dhaafi doonaa markaad presentationka dhaafisid su'aalaha ku weydiin doonaan guddiga aad baad mahadsan tahay adigoo magacaaga waxaan ka bilaabaya waad bilaabi kartaa okay shukran aniga magacaygu yahay maxamed cabdiraxmaan maxamuud waxaan maanta ka hadli doonaa soo bandhigidda qorshaha ganacsiga soo waxaan jeclahay inaan xaway fikrad badan aad ka haysatiin bisnaani waxaan hayaa in ku soo kori doono si aan u wadaagno xogtaan hayo bismillah magaca shirkadda waxa waa shirkadda gaadiidka dadweynaha Tawakal صح milkiilaha waa maxamed cabdiraxmaan maxamuud adreeska waa Hilwa Muqdisho Banaadir Soomaaliya emailka soo jeedin waa kaasa maxamed qadar 130 lambarkan waa kaasa maamulka ganacsiga dalka waxa maamuli doona aniga waa milkiilaha shirkadda Tawakal iyo kaaliyaashida kala ah Abdullah Maxamed Abdullah Jamal Maxamed Jiso iyo Abdullah Xasan Abdi waa kaaliyaashii saddex qofood haddana loo sii gudbay ujeedka aan u sameeyay ganacsigan ama si ugu dhaliyay waxay tahay inaan maareeyo qoysaska noloshooda sida salahan dadka company ka shaqeyn doono in qoysaskooda ay maareeyaan shaqo abuur loo sameeyo dad kale salahan dadka ka shaqeynaya xataa shaqada ay keenayaan waa in ay kala shaqo loo abuuro inaan bulshada gobolka Banaadir aan siiyo adeeg ku filan oo gadeed soo aragtay booq badan baa ka jiro gaadiidka markii laga hadlo soo problem baa ka jiro soo markii inay bulshada helaan waxay ku qancaan suuqa aan beegsanay macaamiisha soo meelaha ugu muhiimsan meelahan waay soo aan beegsanay waa mid ganacsi furan iyo tartan furan leh qiyaas aan ka sameynay dadka raacay gaadiidka gobolka Banaadir waa 1.8 million at least dadka baawarka raaca inta lagu qiyaasay yihiin 3 milyan dadka ku nool gobolka Banaadir dadkaasuna waxay rabaan waxay u baahan yihiin inay helaan gaadiid ku filan iyo kaasoo laga ilaalinayo inaysan baawar cariiri aysan helin salahan macaamiisha aan beegsanayo marka macaamiishu waa qof kasta oo raba inuu raaco gaadiidka si uu si fudud meesha hore ugu tago soo qofka macaamilka waa inaad baahidiisa aad ka tiri kartaa haddaan kasii gudbo waxyaabaha aan kaga fiicanahay dadka ila tartamay soo waxaa jirta competition aan mar walba ganacsi jiro competition way imanaya waxyaabaha way aragnimo aan u leenahay xirfadan waxa ka soo shaqeeyo muddo dheer ayaa laga soo shaqeeyay dadka oo ala shaqada wadi doona waxay ka soo shaqeeyeen muddo aad u dheer wada shaqeyn wanaagsan oo na dhex mari doonta aniga shaqaalahayga kasbashada dadweynaha iyo anoo siinayo adig ay ku farxaan soo qofkan aad u adeegayso dadan ka farxin oo shaqadiisa aad hore u wadin soo waxa uu kuma arkaba inaan baahi tiro adeegaasna bulshada danyarta aan siiyo soo dadka isku mid maahan isku level maahan soo inaan qofna laga tigin oo markii aad dadka adeeg u qabanayso aad dadka aad cadaalad u samayso weeyaan saameynta dhaqaale oo yeelan kara mashruucan kobac dhaqaale in wadankii soo galo shaqo abuur in loo sameeyo dadka inta badan bixinta canshuuraha yeelashada hantida marka la bixiyo deynta ka bacdi oo feedback ay ku noqon doonto adiga ku soo haray haddaan kasii gudbo khataraha iyo xalkooda khataraha aan wajihi karo iyo waxyaabaha aan kaga hortegi karo khataraha aan wajihi karo waxay tahay shil ku yimaada gaariga qayb ka mid a ama asaga dhanba way dhacdaa sometimes dagaal ama colaad ka dhaca meeshii goobtii shaqada ay ka socotay salaan baawarku istaagan oo kale inay meesha problem ka dhaco kale sometimes way dhacdaa haddaba maxaa lagu yareyn karaa soo khatar walba waxay leedahay xal bay leedahay maxaa lagu yareyn karaa waxyaabaan ku yareyn karna waxaa ka mid ah waxaan haysanaa darawallo xirfad iyo aqoon dheeraad u leh
gaadiidkaas isla markaasna aad ugu feejigan meelaha khataraha ay ka jirto soo markaa aad u dhiibato meesha wax xirfad leh aqoonsan leh meesha aad u dhiibto soo wax badan uu ka fiirsanayaa sidee lacag aan ku samayn karnaa marka soo inta markaan soo marno sidee baan lacagta ku abuuri karnaa waxaan adeeg gaarsiin doonaa waxaan adeega gaadiidka aan gaarsiin doonaa meel kastoo ay bulshada joogto ama ay ka jirto baahi gaadiid waxaan ka doonaynaa adeegaas iyo tayadiisa si aan u helno kalsoonida annaguna aan u helno dakhliga dadka soo qofka dad kalsoonidiisa aad helin soo lacagta jeebkiisa ku jirtana ma heli kartid waxaan isha ku hayn doonaa meelaha ay ka jirto fursadaha iyo xilliyada ay jirto soo fursadda haddii aad hesho xilliga ay jirtaan aad aqoonin waa dhibaato kale haddaba waa kana qorshe maalgelineedka alaabta aan u baahana inaan soo iibsado qalabka salaan waa kasa waxa ugu yaraan waa 3 caasi caddiga aan uga baahana waa qaybtiiba hal xabba uga baahana waa 3 caasi ciddad ka iibsanaysana waa garaashka soo hadda carwo kama furno Soomaaliya soo adduunka laakiin carwo weyn baa lagu gadaa iyo qiimaha halka xabo 11 kun jooga baawarka oo maartay oo waxtar kale misna adkeysan karo cadadka wadarta guud waa 33 xabo 33 kun qaybta ee way qaybtaas qarashka ka horeeya bilow ganacsiga salaan waxa ka hore waxyaabahan aad ku faraha badan oo baawarku u baahan yahay marka soo gado salaan raayatoore oo halkii xabo yahay $104 oo 3 xabo lagu dhufto oo ah $420 waa qiimeyn kartaan taayiro 5 xabo baawarku u baahan yahay iskordo soo wax ku soo baxa lagu yar ku soo baxa lagu baabuur oo bacaad iska dhici karo oo meelaha rafta iska dhici karo in loo helo weeyaan xala oo ah halkii gaaray waxa ku filan $250 ala taayiro haween $50 waan soo qiimeyn kartiin bagaaliya u baahan baawarka soo waxyaabo badan baa iman karo inuu baawarka ka fiican helo kale soo hoos day wax ku diiqaysa kor wax u saarato balesteriyaasha kale in laga baawarku waa marka hore soo dego waa gaaban yahay soo balesteriyaasha gadaal waa laga dalacad baa lagu sameeyaa si baawarku gudadka iska ilaaliyo kuraas in baawarka la saaro soo baawarku waxa ku soo baxa kuraas original kuraasna waxay ku ceysaa 350 salan baawarka hadana sidoo kale waxa laga bedelaa olyo laga bedelaa olyo bedel baa lagu sameeyaa bishii waxa ku baxaysaa bishii 2 mar baa olyo laga bedelaa lacagtuna waa $44 shidaalku waa 60 litir marka hore baawarka soo bedelay bixi ka bacay saa gadanayo waa 33 qiimaha oo halkii gaar waxay noqonaysaa 1,037 wadartooda 3 gaarina waa 3,111 soo waa dareemi kartaan waa mid walba waa 3 times qarashka socda ugu yaraan bisha ugu horeysa mushaarka shaqaalaha 450 ay qaataan bishii ay qaadanayaan soo bardhay waxay qaataan $15 ay qaataan hadii dooraan lagu dhifto ama 340 ama 400 meelaas qaataan salaan 3 times waa 1,300 ay qaadanayaan bishaas 3 gaari kirada garaashka waa $16 at least 13 kun shilin Soomaaliya waa habeenkii halkii habeen soo dollar ahaan waxa weeyaan $16.9 bishii ay ku soo aadaysaa waa ku dhifto kaasa boonada sidoo kale oo bardhay $2 ah ala gaari ku dhufo 3 ku sidoo 60 waa $180 trismitaral oo 3 times maanti ah sida ogsoontiinba ku dhufasna sidoo kale waxay noqonaysaa waxaan u qaybin marka bil ahaan xisaabin hadda marka 3 bilba baawarka meeqa uga soo aadi karto oo bishii u dhici karto waa $15.67 buug canshuurta oo sanadkii asna sanadla oo after 1 year soo sanadka hore waa cashuuraha baawarka soo baxaba laakiin kadib bacda laga rabaa labaajada bishii oo bishii baawarka dal labaajin birtii baawarku dhaxalaystay inay imaato oo ah $10 wadarta waa kaasa waa 5,555 wadarta waa taasa marka meeshan waxa ku jirto lacago oo baawarku asoo soo saarayo laakiin aan lagaga baahnayn sax saanahan mushaarka baawarka asaga soo saarto dadka ka shaqeeya ayaa xisaabsanaya soo waxa loo dhigayo kamid maahan saalahan kirida garaashka oo kale asaga bixinaya boonada asaga bixinaya trismitaral asaga bixinaya 3 bil wixii ka dambeeyo waxa loo dhigay baawarka wax shaqo ku malaan buuga canshuurta sidoo kale salaan marka waxaan ka jirnaa totalka guud oo ahay 1,666 ayaa waxaan ka jirnaa 1,610.8 total wadarka guud aad u baahan doonto inaad bisha aad bixido wixii ka dambeeyo waxay noqon doontaa 5,777 hadaba
helidda lacagta qaabkan ku heli karnaa soo lacagta hadaa hesho qaabka markaa haddaad hesho waxyaabaha aad u baahan tahay maalintii waxaad ku soo celin kartaa marka laga jiro qarashaadka dhan goonida ka waxa la soo xaray kara baabuurka halkii baabuur soo xaray kara 345 ayuu baabuurku dhigi karaa ugu yaraan waa minimum per day oo u dhigmato $15 bishii wuxuu soo xarayn karaa marka baabuurkii $450 waa ugu yaraan okay lacagtan u baahan waxay tahay ama aan kibista ugu baahan waxay tahay waa 36,166.7 haye lacagtan hayso soo haday intaas aad shirkadda ugu baahan tahay soo qofku inuu wax haysto waa muhiim oo ina waxa haysta waa 1,500 marka kala jirka marka waa tan inta meesha ka muuqata oo jeedin saafilay 36,000 ayaa wax laga jira 1,500 wax sabaa 34,666.7 wadarta aan u baahan ay tahay okay wadarta guud ee lacagta aan u baahan kimis xitaa waa tasaa adana iyadoo faahfaahsan oo la soo kala jaray haddaba marka dad lacagtii hesho qaabkeen ku bixi karaa meesha taagan su'aasha weydiinta muuntaasada wadarta guud ee lacagta aan u baahan waxay tahay waa 34,666.7 ya waqtiga aan bixinayo waa 2 sano iyo 3 bil soo markaan soo xisaabiyo oo soo kalkulaar galiyay soo kala dhigay 2 sano iyo 3 bil okay sanadkii meeqaan bixinaya wadarta guud baabuurta waxay bixinaysaa sanadkii 16,200 sadexda gaari على قاري maxaa ku soo aadayso 5,400 ayuu xareynaya sanadkii bishii meeqo xareynaya marka in la isweydiiyaa laga yaabo bishii waxa xareynaya baawarkii $440 sida hore soo sheegaba sanadka labaad sidoo kale waa isla meeshii haddaba waxa soo hartay lacag marka waxa jirto haraada soo hartay oo 2 sano ka soo hartay oo dhan 2,266.7 haddaba 3 bilood qaybi wax soo haray waa lacag yar soo faa'iido saarmayso ma sha Allah marka salaam ku wanaagsan waraan ka soo qaaday iyadoo bustajiga dadkii baabuurta ka raacayaan baabuurkan wuxuu jeedaa kale afguyo kula socdaa this one wuxuu socdaa xamar u socdaa ma sha Allah inta sigarinta jisaaga shukr barnaamijka ka hadashay waa gaadiid Soomaa magaalada Muqdisho hadda laftigeed gaadiid la'aan ma aha almost gaadiid uu buuxa faray ka batay macnaan faanta gaadiid ka soo qaada degmada Kaarana xoogina afguy haddii 4 jid ama 5 jid magaalada Muqdisho ka kooban tahay wadada wadnaha iyo shaqaalaha iyo haddii la fiiriyo ilaa iyo wadadaas kale tooda warshadaha inta ka shaqeynaysa ka badan dadka oo mararka qaar wax raaca la waaya maxaa kaga duwanta ay oo adiga awoota ilaa caasi awoota ayagana caasi wata caasiga kooda kama fiicna kooda waa raaca mar hadii kana waa la waaya adi marka competition macnaha meeshii ka sii jira si cusleynay ma wax cusub oo macnaha dadka ku soo kordhis ma jira maxaa soo kordhis ya bajaajna way joogtaa almost macnaha suuq buuxdo caasi mar macnaha mataqaanaa laftigiisa loo soo tashto caasidii hore joogay iyo bajaajti marka la isku soo daray intii hore joogtaba adii markaa ku soo darto suuq waxaa timid macnaha suuq buuxaa timid almost macnaha suuq macnaha fuulaat maxaa faa'iidaas leedahay maxaa kaga duwan tahay ayaga laftigooda ma sha Allah waa su'aalo wanaagsan marka dan ka jawaab su'aashaas waxay tahay waxyaabaan kaga wanaagsanahay soo waxaan qofkan aan sii doono waxay tahay waa horta qofku waa in bini'aadamka markaad macaamilin ka dhaxeeyo waa inaad xushmad aad leedahay soo dad gaadiidka aad raacdo soo waxa uu fiirinaya asaga waa dantiisa oo kaliya soo dadku isku mid maahan isku level maahan waa kala duwan yihiin soo salaamaanta dadka ardayda waa aragtay markii baawarka raacayaan qofkan wuxuu ku soo baxaa lacag yar uu ku soo tashkaa sala ay waalidkiisa soo siiyaan baawarka markuu intaas haysta waxa laga yaabaa sometimes oo ka tago soo markii inaan qof walba oo bini aadana wax horaba haystee inaan ka tagin waxa ugu wanaagsanahay qodobka koowaad qodobka labaad waxay tahay tartan baa meesha ka jira Soomaa tartanka markii qaabkan ku weyji karo waxyaabaan aan xalka u heli karo waxay tahay inaan qof walba dadka aan simo ina sinto يعني كسو قاد مثلا ما قفا ku yiri lacag aan qiimo macnaha suuragal ah ugu qaad ku مثلا suuq xoolaha soo joogo wuxuu kale kushin lagu qaad ilaa ay Kaaran igi ama ilaa Madiina igi ma ku qaade caasliida waxa ay kaga tagaan dadka waxa kamid ah lacagtaas مثلا maqrashka kushin loo shil Soomaaliya kaga soo qaadi kartid Madiina ilaa ay suuq xoolaha laakiin mar walba waxaad ku xisaabtantaa soo maanta iyo bari waa kala duwan tahay soo qofkana maanta aad qaadayo
بري وحول لقى يا وعند معامل بدنا تكون شجاب كيسة سو ما أنت واحد سميسا أي برينا أي كوسا نقضنا وقرتي صدق كمان أنت كنت تكسر أترى حواي وحمايست أكتكتو سو قف كدتك اسكول ليفل ما دونك اسكول بدلاي قف اسكول بدلاي وافهمي تمور ولا وحي صوت سو ما أنت لقوم حساب قد وقرتي مدة كلا تود حق شغلنا سوى جديد أجين مرة بعد حق شغلنا سوى جديد مقالة المقدسة صومة مرة خارج حاجة ريسك فربضن ريسك وحكي ما انكره حق أمانك مرة خارج عرق صار ولا سفر بدون حق أمان كجرو مرة خارج ريسك وحكي جرا كومبيتيشن كله تجلس معناها مطرتن كله تجلس مشاكل كله جرو معناها قيب كا وحاك له قيب كا ودوين كي مرة مقالة المقدسة laga soo bilaabo suuqa xoolaha ilaa iyo wadada wadnaha laga yimaado wax dhisan ma jiraan dhulku waa jajaban qorshaha ugu darsato dhulkaas jajaban inaad ku shaqaynayso gaarigii inta aad u talgashay uu shaqeeya ka yar uu shaqayn karaa sababtoo ah suuqa xoolaha ilaa mesela madiino oo kale waxa u soo soconaysaa dhowr saacadood ama saacadii wax ka badan u soo soconay sababtoo ah wadadii ma dhisna qarashaadka aad ku tashan lahayd ma helis mararka qaar qorshaha ugu darsatay laftigeeda ما شاء الله أنا قرشات ما ارتحت عن باورت كوير أو أمس مانجمنت أنا وسميرة واحد ارتحت عن سو باور مركو أنت كبحو إن الباب كرتو ذا فاست ون لوحير أو باور كهذا باور توسا سو قفك مركو كدجو باور كسو يريد سحرته أو قفك لو صارع كو مدة كلوحي كهرنت هاي كومبيتي باور كهجا يضدك وحسك حركة كرت قفك الليفل كيس السرية أو مثلا دقدي ساعتها وحفهمي كرو أيضا لما عامل كر أنت بدن soo darawalo marka aan waxaan haystaa marka aan ganacsiga ugu dhiirana waxay tahay soo qofka aan in badan ku karsano misna shaqadan xirfad badan oo la waqti badan ka soo shaqeynaya salaan 87 kii meel u meeshay waamay dadka soo shaqeynaya am soo aan haya oo barnaamijkaas aan huwa in ay darawalo noqon doonaan gartay waxa kale oo kaan rabaa wax insurance aan ku jirta baawur arta ana ka shaqeyso magaalada muqdisho waxa ka jiraan shirkado insurance igu xaas ka shaqeeyaan waxa insurance ama caymis ma ku jirtaa lacag inkiis baawrkaada haduu shil galaa mashaakil kugu yimaado ma ku qorsheysan tahay soo mar walba wixii imaado ayaa qaabka ugu jiilada ku xiran tahay soo baawrkana dhammaatay waxyaabo badan caymisna ma sha Allah ila badan waan rajaynayaa ustaad sidee ku soo celinay lacag kims ay rabto inuu kugu maalgeliso lacag inkiis dil ugu maalgeliyo soo celin kartaa aslada magaalada muqdisho markaa fiirsay xaaladaha aamsho oo hubtaa haddii barnaamijkaada shaqeyn waayo مثلا برنامج كان جوارد كجرت هذا شغل مع الترناتيف مع قرشة كلو هيسا أو جراسيو كاس كجدونه بدل لي ضدي إف هذا شغل كهذا عرفتنا شغل بس حكى جوا هي تاي سو هذا جناحسي وهو عنبا مركل فيديو مقدشو أما قبل كبنادر هامبا سو عاسي مركل فيديو وجناحسي وهو فوتبا يرداك لا ده حرمة عاسي وحصور عمو وينيسد ريالي أما الله وقفات أما طبعا قفات وجناحسي وقفوا ما شاء الله ومروا بقى حرمين أو الصبح حرمان لاين سو إنه وضوين كبدنا ولا صار صورة قال هذا أنا أيضا الصاري سو واحد أرتأني وضوين كالكوريجان باورت العكتين ضد كي ساران سو وريجا أكو حسابتهم. قلت إن العجلة اللي كنت تلقى ذيك كمس إن يكون مجلس إن كيس هذه السلفة معناها أو قرشها روسي صعدة إن وكير تهاي أنت هذيك عدل بنيسان معناها هذيك معناها almost هذا 35,000 عدل بنيسان معناها هذا اللي يقول هذا قرشها 34,000 دولار معناها 12 سمدوا almost هذه اللي يقول هذا يعني قرشات كسفرها بدن لما هاي محاكم علينا صور قال ما هذه اللي يقول هذا ما بدل كرتا قرشها أصلا قرش العقيد كسفرها بدن له كسود دك هذه اللي يقول هذا معناها سفيرنا يعني باورتي إن بدل لقيت كي نقانا سامركاس ما يقع جوارات مقارنة فري تيمس وتستح باور واي استح باور ها اوكي جوارات عاصمي أم سوا كوستر عاصمة عاصم لكن تضبط أصيدا ما حد جوجا إن لحكون تضبط كل جوجا مقالة موسك جوجا مركو قبض تطبقهم هذه كلام منهم عاصمة برمضة 97 98 أو مثلا 99 كيا وسوي كرتا باورت أو ساعد وينها أو جيرك أوتوماتيك أكوي ماذا أن هين كي أن بتكانوا مارت أو باورت يركا أو كلام هين وسوي كرتا بس محمد عن كودي لها أنا جنا waxaan noo sheegtay mushaar $450 inaad sii doontid shaqaalaha mushaarkaas marka ala qof ma $450 uu tala gashay kaanoo cadday bal ma faahfaahsankaas $450 Soomaan soo marka wadarta way ka badan tahay laakiin ala qof waa $450 u fahantay uu tala gashay mushaarka ala bish bilow marka salahan dad ku sameeyo soo daroolkii krishbi waxay qaataan waxay tahay waa cash صح
saddex boqol iyo adiga afartan saddex boqol sagaashan meelahaas waa kaash ahaan haddii door ahaan loo bedelo $15 waay $15 marka ku dhufato bisha ku dhufato $450 kuma shilin Soomaaliya ama dollar waa dollar $450 waay oo mushaarka qof walba uu qaadan doono bil walba ma yal wadarta darawalka kirshbooga wadarta oo labadooda isku jiro $450 ay qaadanayaan baro walba waxa qaadanaa $450 oo qaadanaa kirshboogiisa darawalkiisa ay bishii qaadanayaan bil waliba waa marka la isku daro waxay noqonaysaa adiga lacag kun iyo ku dhawaad xogaa kun iyo ka badan aad baad mahadsantahay maxamed insha allah waan kula soo xidhi doonaa haddii aad ku guulaysid fursaddan aad si wanaagsan baan ku rajaynaynaa aad baad mahadsantahay aystawa mahadsantiin waqtiina qaali ay soorteen shukran maasha allah dareenkii soo markaan galay maadaba soo farq badan baa ay dhaxayso qofka feeskiisa waxa laga garan karo ما شاء الله أنا هاي قف إن شاء الله أنا نقول استوى إن شاء الله سو إن بدل ما أنا حمينا إن نقول استوى سنة أنا هو بين نقول استوى إن شاء الله ما شاء الله توبر كاس بدل قياس كلام سوما سو ماشي أنا كوسو جارو وتوبر كاس سو دان توبر كاس أنا قاضي لهين ماشي مو سو جارين بقى